deeqi saaq kabeer oo muddo ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya ayaa dhawaan booqasho ku timid magaalada Toronto ee dalka Canada iyadoo qayb ka ahayd wafti ka qayb galay tartanka ciyaaraha Somali Week ee sanad walba lagu qabto magaalada Toronto kaas oo soo qaban qaabiyo ururka Today kadib markii tartanka ciyaaraha la soo gabagabeeyay deeqi saaq ayaa kulan la qaadatay siyaasiyiin oo kamid yahay xildhibaanka heer federaal ee dalkan Canada Evan Baker iyo qaar kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto gaar ahaan xubno ka tirsan bulshada ka soo jeeda beesha Galjecel kulanka ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed iyo guud ahaan duruufaha dalka Soomaaliya deeqa ayaa sidoo kale bulshada u sheegtay inay murashax xildhibaan u tahay maamul goboleedka Hirshabelle iyadoo soo bandhigtay aragtideeda siyaasadeed ee ku aadan kaalinta ay doonayso inay ka qaadato siyaasadda iyo horumarinta dalka waxay tilmaantay in amniga dalka uu aad u wanaagsan yahay xilligan iyadoo madaxda dalka ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku amaantay kaalinta siyaasadeed ee uu siiyay dhalinyarada iyo inuu dalka u horseeday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ay digii madcilnaa waqtigeeda qiimaha badan wanaaggiina way digii madcilnaa dhalinyarada oo iyo gabdhaha iyo wiilasha iskugu jiraan waxaa digii warbixinayaa Soomaaliya amnigeeda haddii soo hagaagayo inay fursado badan ay taagan beel ahaan ina anaga sana gaabis ay jiraan siyaasadda markay imaado in naftirkii fursado ay furan tahay dowladda hadda jirta Xasan Sheekh Ilaahay wuxuu u fududeeyay amniga inay sameyso sida ugu fiican wadankii amni yahay inta dhimana la xoreen doono dhawaan sidoo kale tani dhiirigelisa dhalinyarada oo siyaasadda hadda ay noqoto qof iyo cod deeqi saaq kabeer ayaa horey wax badan uga soo qabatay siyaasadda dalka iyadoo kaalin muuqata ka soo qaadatay dhanka agaasinka guud iyo la talinta wasaaradda dhowr ah kuwaasoo ku mahdiyay talooyinkeedii wax ku oolka ahaa waxgarad aqoon-yahano haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb galay kulanka ayaa si diiran u soo dhaweeyay deeqa qaar ka mid ah dadkii kulanka ka hadlay ayaa muujiyay taageeradooda iyagoo u rajeeyay inay ku guuleysato kursiga ay u tartamayso kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamo ay inta badan siyaasiyiinta iyo musharaxiinta Soomaaliyeed la yeeshaan jaaliyadaha ku nool dalka Canada marka ay booqasho ku yimaadaan si ay ugu warbixiyaan xaaladaha dalka isla markaana ay ula wadaagaan qorshahooda siyaasadeed deeqi saaq kabeer ayaa la rajeynayaa inay ku guuleysato kursiga xildhibaannimo ay u tartamayso maadaama ay khibrad badan u leedahay dhanka maamulka iyo siyaasadda deeqi saaq kabeer ayaa intii ay ku sugnayd magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa shahaadooyin ku doonsiiyay ururka Today iyo xildhibaanka laga soo doorto xaafadda Etobicoke Center ee magaalada Toronto Evan Baker dad badan ayaa aaminsan in ay tahay in kaalin muuqata la siiyo haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda iyagoo isbeddello ka sameyn kara arrimo badan oo ay ka mid tahay horumarinta dalka